madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa saaka soo gaadhay magaalada borama waxaana si diiran u soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan magaalada borama ee xarunta gobolka awdal maamulka heer gobol iyo heer degmo cuqaash ee waxgaradka ka soo jeeda gobolka awdal madaxweynaha ayaa waxaa loo soo galbiyay khayriyada magaalada borama si uu ula hadlo dadweynihii soo dhaweeyay ugu horeyntii madasha soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa ka hadlay maamulka heer gobol iyo heer degmo cuqaash ee waxgaradka gobolka awdal waxa farxad maanta ah mudane madaxweyne magaaladii borama inaan kugu soo dhaweyno oo horumar wanaagsan ka socdo iyadoo bulshada borama ay hareeraha ka taagan tahay wax kasta oo dan guud oo magaalada qurxinaya inay dhinac istaagaan waxa maanta farxad ah in xisbiga kulmiye shirkiisii inuu ku qabsado halkan oo iyaduna taasi loo aqoonsaday somaliland inay borama tahay aasaaska ama dhidibka nabadda somaliland kugu soo dhaweynaynaa degmada gobolka awdal magaala madaxdiisa borame oo dadkaas faraha badan soo dhaweyntaada ka soo qayb galay iminkana taagan khayriyadda si ay u dhageystaan khudbadda weyne adiga waftiga hogaaminayso waa sidaa meeyarka iyo barasaabka u sheegeen waxaanu ku leenahay haddaanu nahay madaxdii dhaqanka ku soo dhawaada dalkiinnii ku soo dhawaada gobolkiinnii ku soo dhawaada degmadiinnii ku soo dhawaada dadkiinnii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta imashada maanta halkaas noogu timaadeen dhankooga iyagna waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka somaliland axmed yaasiin sheekh cali ayaanle iyo wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ka mahadnaqaynaa marka koowaad soo dhaweynta qiimaha leh ee wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo u samayseen waa dhab wax cusub maaha waa dhaqan xadaaradeed oo aqooneed oo dawlad yaqaan oo gobolkani leeyahay baa idinka muuqanaysa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dawladnimadu waa waxa ummadda deeqa waa hadhka la hadhsado ee ummadi cadceedda ka hadhsato waa marka ugu horraysa gobolka awdal gobolladii qadiimka ahaa ee somaliland uu ka mid yahay ilbaxnimo fara badan baa ka soo jeeda dareen fara badan oo siyaasadeed iyo dadkii halgankii ilaa 60kii u soo halgamay baa ka soo jeeda 93kii shirkii burco keliya baa ka horreeyey meeshii dhidibada loogu aasay bay ka mid tahay xasuus baan anigu dib ugu noqonayaayo ilaa iyo shirka kulmiye sababta loogu qabanayo raggii halkan joogay shirkii 93kii baan anigu ka mid ahay madaxweynuhuna ka mid yahay hoggaanka xisbiga kulmiye iyo waayeelkiisa iyo waxgaradkiisa iyo guddigiisa fulintu qolyaha qurba joogga maahee raggii halkan 5 bilood fadhiyay bay ka mid yihiin xasuustaa awgeed bay maantana u doorteen in borama shirkii golahooda dhexe lagu qabto madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay safarkii uu ku maqnaa magaalada addis ababa ee uu casuumaadda ka helay ra'iisul wasaaraha dalkaasi laba qodob ninkaasi ayaanu ka wada hadalnay oo isla beelayday somaliland iyo ethiopia saaxiibtinimadii ka dhaxaysay dhinac walba ganacsi ammaan tala wadaag intuba inay sideedii si ka wanaagsan ahaato waa wada qaadanay oo halkeedii ka socoto oo koow ka tahay wadada berbera wajaale ee la kooridoorka berbera oo haddii la yiraahdo khamiista la dhagax dhigi doono dekadiina la bilaabay oo iyadana ay socoto 400 mitir lagu daro iskaashiga iyo wadada la isu marayaa inay taa koow ka tahay waxa inoo haray u yahay in laga heshiiyo heshiiskii baac mushtarka madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya waxaana uu sheegay kashay caalamku waxaanu ku niri 10kii sano u dambeeyay annagu baa aynu wada hadal walaalayaal daba soconay haday wada hadal ogal yihiin saacaduna gartayaduna way noo duuban tahay waxa naga maqnay waxa tabarada waanu ognahay ciidana la soo talin mayso dalowga yeeri maayo cid nooga xoogaalsan dantayada annagu hadaanu Somaliland nahay la mid manihin koonfurta Soomaaliya yaanu waxaan ku kala duwanahay laba qodob ka koobaad annagu waxaanu nahay dad distoor leh oo distoorkoodu aanu ahayn draft ee ummaddu u codaysay oo qodobadiisu ay hogaamiyaan talaabada ay qaadayso dawladdu waxaanu nahay dal distoorkooda u kala qaybsan yahay awoodaha dawladda
oo aanu madaxweynaha ama xukuumaddu waxay doonto samayn karin waxaan u soo qaadanay 3 qodob baa ku jira somaliland dastuurkeeda oo aan madaxweynuhu ku gafi karin oo aan baarlamaanku bedeli karin oo ku hadli karin oo aanay guurtidu ka hadli karin ee dadweynaha loo reebay 3 qodob ka ugu horeeya waa ka marka la wada hadlayo Soomaaliya iyo Somaliland oo wada hadlayo dastuurka qodobkiisa 112 waxa uu leeyahay qarannimada Somaliland hadday la bahoobayso ama ay la midoobayso gobol ama dawlad ama qayb kamid ah oo ay heshiis xariyadeeda ay cid la galayso ma goyn karto dawladda iyo baarlamaanka dadweynaha afti looga qaadaya وحفص السيد عبد الله جوب شوك تي في مقالة borama